وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا الرحمن الرحيم. All praise be to Allah, Lord of the world, the most gracious and the most merciful. We praise Him and seek His assistance and forgiveness, and we take refuge in Allah from the evil of our deeds and from the evil of ourselves. We bear witness that there is no God but Allah alone, and we bear witness that Muhammad is His servant and His messenger. Peace and blessing be upon him. After that, today we are going to start secondary English for Somaliland, and this section we are going to study word formation. haddii ilaahay ma insha Allah arday waxa weeyaan maanta waxaynu dhiganaynaa cutubkeena buugeena form 4 ka qaybtiisa word formation ka oo kamid ah qaybta saddexaad ee cutub walba ee vocabulary ga أولاً waxaan ku bilaabaynaa waa maxay word formation ku af Soomaali waxa weeyaan samaysanka ereyga la yiraahdo word formation. Word formation ka marka la qeexayo wuxuu noqonayaa word formation ku waxa weeyaan is a process, waa nidaam, is a process that we formed a new word. Word formation waxa weeyaan waa hab lagu sameynayo erey cusub. Is a process that we formed a new word. Marka doonaysa inaad erey cusub abuurto ama aad samayso ayaa la yiraahdaa word formation. Process-ka la raaco ama la isticmaalo marka la doonayo in erey la sameeyana waxa la yiraahdaa affixes. Affixesku dhowr qaybood buu qaybsamay, laakiin waxaan soo qaadanaynaa labada qaybood ee ugu waaweyn. Qaybta hore in soo qaadanayna waxa la yiraahdaa prefix. ayaa la yiraahdaa qaybta labaadna waxa la yiraahdaa suffix. Okay, haddaynu hal mar dib ugu yara noqono waxaan ka hadlaynaa word formation af Soomaali waxa weeyaan samaysanka ereyga. Waa qaabka loo abuuro erey cusub. Process-ka la raaco waxa la yiraahdaa affixes. Affixes-kuna wuxuu qaybsamaa laba qaybood oo waaweyn. qayb waxa la yiraahdaa prefix, qaybna waxa la yiraahdaa suffix. waxaan ka horeynaa prefix-ka. Prefix-ku af Soomaali waxa weeyaan horgale. waa xaraf ama koox xarf ah oo lagu darayo bilowga ereyga bedelayna macnaha ereygaas uu lahaa. waxa la prefix-ku wuxuu noqonayaa is a letter, waa xaraf, is a letter waa xaraf, or amase group of letters waa koox xarf ah, group of letters waa koox xarf ah added oo lagu darayo at the beginning of a word stem. waxa lagu darayaa at the beginning of a word stem. waxa lagu darayaa bilowga ereyga. sababta loogu darayna waxa weeyaan to change waa inuu bedelo, to change its original meaning. sababta loogu darayna waxa weeyaan waa inuu bedelo macnaha ereygaasi uu lahaa ee saxda ahaa. Okay, inta inaynu si fiican iskula fahnay baan jeclahay. waxaan word formation is a process that we formed a new word or created a new word, and the process that we are going to use is called affixes. Affixes divided into two main parts. The first one is called prefix and the second is called suffix. Prefix is a letter or group of letters that added of a word stem to change its original meaning, also to make the opposite of that original word. And prefix kuna laba nooc buu si qaybsamaa. waxaan soo qaadanaynaa haddaba hal mid baan soo qaadanaynaa. tusaale waxaan qorayaa person, waa original word. waxaan odhanayaa personal, erey baa samaysmay. haddana waxaan ku darayaa prefix, waxaan odhanayaa impersonal. ereygan baynu isla eegi doonaa. I am waa prefix oo waa horgale.
al taasina waa suffix oo iyaduna waa dabagale oo xarafka xagga dambe ka raacaysa original word kuna waa person ba halka inuu qorno si fiican baa aragta haddaan eri labaad ku celiyo waxaan soo qaadanaynaa suit abl baa raacnaa xornaya suitable haddana un baa raacnaa xornaya unsuitable un tani waa prefix abl dana waa suffix suit baa marka original wordki and process kan baa la yiraahdaa word formation ayaa la yiraahdaa word formation oo samaysanka ereyga waxa baladaba waxaan soo qaadanaynaa prefix-ka imsa nooc baa loo qaybiyaa samxu qabtaa shaqooyinka uu qabtaa maxay tahay prefix-ka waan isla garanay Soomaali waa horgalaynaa Soomaa sax imsu qaybsama prefix-ku wuxuu qaybsamaa laba nooc labada nooc oo qaybsama mid kamida ayaa waxa la yiraahdaa positive prefix ayaa la yiraahdaa mid waxa la yiraahdaa positive prefix midna waxa la yiraahdaa negative prefix ayaa la yiraahdaa negative prefix ayaa la yiraahdaa oo kuwa positive prefix ku horgalayaasha oo kalaanshada negative prefix kuna horgalayaasha diidmada positive prefix keenu bal in yar soo qaadanayna ereyada ugu caansan positive prefix ka waxa kamid ah pro waxa kamid ah bre waxa kamid ah inter waxa kamid ah multi waxa kamid ah fe ereyada aan meesha ku qoray sorry ereyada imka aan meesha ku qoray waxa loo yaqaanaa positive prefix ereyga markay xagga hore ka raacaan macnaha ereygii bedelaan laakiin ereyga soo baxaya ma noqonayo erey opposite ku ah original wordka adeegsatay tusaaladan soo qaadana xorana bal ereyga ayaga haye imka original word waa noun de waa erey jira soo ah xorana pronoun pro ayaa prefix oo horgala macni ereyga weyn bedelnay the opposite iskuma aha nounka iyo pronounka marka ereygan xagga hore ka darnay pro macnaheedu waa support ereyga pro means support macni ereygan uu bedelay waxa halkan imka ku samaysan waa erey kale oo ka duwan ereyga hore inaysan okay mid labaad haddaan ku daro waxaan oranaynaa sida tusaalahan oo kale imka waxaan oranayaa position weeri jira xagan baan kaga daraya preposition ereyga pre-na macnaheedu waxa weeyaan before ayay noqonaysaa imka tusaalahan oo kale waxaan oranayaa postpone ereyga born weeyaan original wordku bosto ayaa prefix noqonaysa tusaalahan surface multi surface oo kale kuwan baa waxa la yiraahdaa positive prefix ereygeenu tusaalaha ugu dambeeya soo qaadana waxa kamid ah tusaalahan imika net xagga hore waxaan kaga darayaa internet inter macnaheedu waa between net original wordkii buu ahaa kan markaan ku darnayna macnaheedu ereygu uu bedelmo macna cusub oo kale ka duwan baa soo baxay negative prefix-ka horgalayaasha diidmada iyagu shaqada ugu weyn qabtaa waxa weeyaan inay soo saaraan erey opposite ku ka adeegsatay ereyada ugu caansan waxa kamid ah im in un ir il dis mis ereyada aan qoray waxa la isku dhahdaa oo loo yaqaanaa negative prefix waxa loo yaqaanaa negative prefix Soomaaliya waxa weeyaan horgalayaasha diidmada ereygay raacaan waxay ka dhigayaan negative sidoo kale wuxuu noqonayaa erey cagsi ku ah ereyga original wordka ay haysatay buu noqonayaa tusaalaha aynu qorayno waxa kamid ah tusaalahan polite marka prefix-ki raaciyo wuxuu noqonayaa impolite sax soo ma okay tusaale kale haddaan soo qaato waxaan qorayaa sane waa miir qaba waxay noqonaysaa insane
haddaan mid kale soo qaato waxaan odhanayaa tusaale ahaan oo kale happy waxay noqonaysaa unhappy. tusaale kale haddii aan soo qaato aan qoro waxaan odhanayaa tusaale ahaan oo kale lead waxay noqonaysaa mislead. imika kuwa inoo soo baxay kuwa imika halkan ku qoran waa positive prefix baa lagu daray, kuwa xaggan ku qoranna negative prefix baa lagu daray oo diidmay ka dhigeen. ereyga soo baxayna automatically uu ka duwayay ereyga original word keenaysan. Note these two prefixes all and well, labada prefix all iyo well, we have to change their spelling when we are going to add. waxaan bedelaynaa labada erey all iyo well marka aad doonayso inaad ku darto erey spellingskooda. change their spelling. labada waxaad samaynaysaa change their spelling. waxaan bedelaynaa spellingkooda. saynu bedelaynaa the second L is omitted. The second L is omitted. waxaad samaynaysaa esha labaad baad delete karaynaysaa meesha ka saaraysaa. tusaalaha ugu fiican soo qaadanna waxaa ka mid ah come, welcome, double L lagu dari maayo, well waan iga raaciyay, eshii labaad baan meesha ka saaray. tusaale kale haddaan qoro xidhanyahay so waxay noqonaysaa also, double L qori maysid waana esha labaad ka baabiisa. haddaynu hal mar dib isku yara xasuusino, today we are going to talk about how to make a new word. When you are going to make a new word, we are going to use a kind of vocabulary, and this kind is called word formation. First, let's define what is word formation. Word formation is a process, is a method that we create a new word, and the process that we are going to use is called affixes. Affixes is divided into two main parts. The first one is called prefix, and the second one is called suffix. Prefix means horgale, when isla qaadanayn iyo xaraf ama koox xaraf ah oo lagu daray bilowga ereyga bedelayna macnaha ereyga, labana loo qaybiyo positive iyo negative. tusaalahan oo kalka inoogu qoran suffix-ka ayaynu isagana wax yar oo kooban ka sheegi doonaa. suffix-ka Soomaali waxa weeyaan dabagale. suffix isaga waxaa la yiraahdaa Soomaaliga dabagale. isagu waa xaraf ama koox xaraf ah waxaana lagu daraa dhamaadka ereyga oo wuxuu noqonayaa suffix-ka added. waxaa lagu daraa at the end of a word. dhamaadka ereyga lagu daraa macnaheedu ereyga uu bedelaya. suffix-ka hadaba uu nuuciyo badan yahay. waxaa jiro in samaynaynaa noun suffix, sidoo kale waxaan samaynaynaa verb suffix, sidoo kale waxaan samaynaynaa adverb suffix, sidoo kale waxaan samaynaynaa adjective suffix ayaan samaynaynaa. tusaale haddaan soo qaato noun suffix oo kale waxaan odhanaynaa markaad noun ereyga haysato ee doonaysa inaad magac ka dhigto. tusaalaha waxaan soo qaadanaynaa teach waa verb, noun markaad doonaysa inaad ka dhigto wuxuu noqonayaa teacher, suffix-ku waa ar waana noun suffix. verb markaad doonaysa inaad ereyga ka dhigto tusaalahan oo kale waxaan qoriyaa item, tusaalahan waxaan qoriyaa general bada general. okay, verb markaad doonaysa inaad ka dhigto waxaan odhanaysaa generalize. adjective koo kale waxaan qoraynaa reliable. markaad doonayso erey baad haysataa tusaale ahaan kaasoo kale imika person, markaas leedahay adjective waxaan odhanaysaa personal ama reliable. Anyway, I think you have just understood what I'm talking about. You students, I'm your English teacher Abdurrahman Sameho. See you again with the next lesson. Bye bye for now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.